ciidan maleeshiya beeleed ah iyo mudaharaadayaal isku beel ah oo iskarabsanaya ayaa saaka khalkhalgelin amni ka bilaabay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Arrintani waxa ay ka dambeysay kadib markii xalay ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkii siyaasadeed u jartay dalka Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa madaxbannaanideeda qaran ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qanuunka caalamiga gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya waxay u yeedhanaysaa dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga Kenya inay dalka dib ugu soo laabtaan, waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dowladda Kenya inay dalka kaga baxaan muddo 7 maalmood ah oo ka bilaabanaysa caawa oo bishu tahay 15 Disembar 2020. Kenya iyo Soomaaliya waxaa horay uga dhaxeeyay khilaaf badeed, taas oo ay Kenya ku doonaysay inay ku qaadato qayb ka mid ah biyaha badda ee Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la rumaysan yahay inay Kenya bilowday dadaalo ay ku rabto inay cadaadis ku saarto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyada oo isticmaalaysa siyaasiyiin iyada u khidmeeya, kuwaasi oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ka dambeeya mudaharaadkii saaka ka bilowday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, isla markaasna gudaha magaalada soo geliyay maleeshiya beeleedka hubeysan. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta Soomaaliya ayaan iyagu qarsanin in ay dalal Soomaaliya cadow ku ah taageersan yihiin, iyaga oo markasta oo dowladda Soomaaliya qaadato go'aan siyaasi ah ku khilaafa, isla markaana la soo safta dalka kale ee ay ishayaan dowladooda, ha ahaato Imaaraad, Ingiriis, Maraykan, Kenyaan amaba Ethiopian. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa hadda la jahawareersan cadaadiska siyaasadeed ee ay Kenyaanku ku doonayaan inay kula wareegaan xuduud badeedkii Soomaaliya iyo madaxda mucaaridka oo dabada ku wata Kenya. Mucaaridka Soomaaliya waxay horay dowladda ugu khilaafeen qaabkii ay dowladdu u maareysay damicii ay Kenya ku rabtay inay badda Soomaaliya ku qaadato. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaridka ayaa horay badda Soomaaliya ugu saxeexay Kenya, waana qodobka ay hadda Kenya ku doodayso